madaxda ismaamulka Wajeer ayaa isku dayaysa inay ka jawaabaan abaar badan oo dad iyo duunyo saameysay taasi oo ka jirta guud ahaan gobolka. Barasabka ismaamulka Wajeer Axmed Cali Mukhtaar ayaa magaalada Wajeer ka daahfuray gargaar biyo raashin iyo cawska la siiyo xoolaha kuwaasi oo la siinayo dadkii ay abaarta saameysay. cawska xoolaha la siinayo ayaa waxaa laga iibiyay beeralayda ismaamulka Wajeer taasi iyagu naftooda u yahay kabis dhaqaale. Governorka anaga oo muddo 4 sano ugu hore ay maartay wax farmerska aan laga gadin ay jirtay. Waad ogtihiin reer Wajeer beeralayda inaad maartay abuurataan cawska asaga ah badi idan haysanin meel aad ku asturtaan oo roobka mumkin gamaado inga halaabo. Hadda ka halkan arkaysaan waxay indhistay meelaha qaar markaan ku wareegnay waxaana ogaanay inuu idin qabin meel aad cawskiina dhigataan. taa darteed wax badan baa xafiisyada noogu imaadeen oo nagu tiraahdeen waxaan rabnaa in cawskii nagala wareego. Ilaah mahadii sanadkan cawskii waa liingala wareegay ilaa 10,000 oo peel ayaa liingala wareegay oo loo qaybinayo shacabka tabalaysan ee magaalada Wajeer gudaheeda ku nool. cawska asaga ah macnihiisa muxuu tari karaa? Wuxuu ku tari karaa ninka abuuray wuxuu helayaa hami uu wax kale ku abuuro waayo suuq joogto ayuu haystaa. Ana isna beeraley oo cawska abuurin hayso oo laga gadanayo waxaan u sheegayaa in ay caajisin oo shaqada 2 jibaar iyo 3 jibaar ka sii dhigaan insha Allah. Governor waa jooga kulli waxay ku jirtaa Governor Weerar waxa uu xirtay hal sano ama 12 bilood. Governor Weerar ayaa hagaajin doona budgetka 2022-2023 soo hadda si fiican taas ula hadashiin 2 jibaar ama 3 jibaar ayaa leeginaya oo hayga cawska leebsana insha Allah. nasiib daro amaan ma ay helin nasiib in laga gato 4 sano sidaan ogsoonahay 4 sano budgetka way ku jiri jirtay lacagtaas 10 malyan ah. marka maanta alxamdulillah 10 malyan ee budgetka ku jiray dhammaan annagoona ka soo gadin caws meel kale sidaad arkaysaan stogan waan u mahadnaqaynaa hay'adii inoo dhistay hadda waxa buuxo caws oo laga gaday beeralaydan noo hor joogto. Dhanka kale xoolo dhaqatada ismaamulka Wajeer oo la hadlay warbaahinta Star ayaa inoo sheegay inay wajahayaan abaar aad u kulul iyo biyo la'aan iyadoo xooluhuna ay hadda bilaabeen inay dhintaan sida lo'da oo aad ugu nugul abaaraha. Anaga waxaan ka imaanay meel sarf la yiraahdo abaartan kolba Ilaahay baa keenay. Ilaahay baa hadana awood leh oo naga qaadi kara. Ilaahay naga qaado. Waad arkaysaa kolba waxna haasto oo waxaan umaleynaa maalintiiba intaasoo neef aan nafta ay daaynahay waxaan la gubay waad arkaysaa waxa meeshan biyo baan masruufinayn anaga miyan iska ahayn iyadan baan wadano masruufinayn iyadana waa tan hadda dhimanay biyo waa ko hadda meeshan Ibrahim Ureydan waa la cabi waayay ceel hadda Ibrahim Urey noo dhow waa la ka ban waayay waxaan anaana la mooday riba had biyo nooga soo qaada booyad yaan ku cabnaa waa 25 markuu ugu hooseeyo marka kale waa 30 markii oo lacag aad wayso waa ku gooyo baan hadda barya iyo noogu keenay marka awood hadda saana iska tago awood bini aadani wixii aan wadanana waa waxan